daawadayaal waxaan fiidiyowan kaga hadli doonaa kooxda loo yaqaano Carbanak waa tiimka hackerska kii ugu khatarta badnaa. Waxay jabsadeen in ka badan 100 bangi oo ku kala yaala 30 waddan. ATM-yada magaalooyinka adduunka sida Paris, London iyo Moscow. Maanta waxaan gelaynaa gudaha sirtii kooxda dunida qabsatay. haddii aad ku cusub tahay noo soo biir, haddii aad hore noola joogtina waad ku mahadsan tahay. Sida ay wax u galeen marka la eego nidaamka, wax walba waxay ku bilowdeen email fudud oo loo diray shaqaalaha bangiyada. Emailkaas waxaa ku jiray virus qarsoon oo xambaarsan gudaha virus. waxaa u furnaya dawadiisa waxay ugu qarsoonay furaha qolka qarsoon ee bangiga. waxaa si otomaatig ah ula socdaa wax kastoo ka dhaca gudaha bangiyada. halkan ayay sirta ku jirtaa, ma aysan hadin. marka la eego waxay hore u samayn jireen, waxay ku anbaxeen in ATM-yada adduunka ay ka soo qaataan lacag bileecadda, balse tookadan may xalin lacagta ATM-ka. isla markiiba waxay nidaamka ama sistemka ay ku dhex qaateen in ka badan bilooyin. waxay duubeen shaqaalaha bangiga ayagoo kamaradaha ka daawanaya si ay u bartaan sida uu bangiga u shaqeeyo, xawaaladaha lacagta loogu diro, sida sistemka gudaha u shaqeeyo. waxay xitaa ay ku begelinayeen baasiwaaga loogu isticmaalo ATM-yada ama credit card-yada sidoo aan laga shakin. waxay ku qaateen in ka badan bilooyin ayagoo ku jiro sistemkan. waxaa dhacday maalintii ay lacagta la guuri lahaayeen, kaamirada qarsooneed waxay markii hore gacanta ku dhigtay baasiwaaga loo yaqaano transist, kaasoo ahay midka u dhaxeeya sistemka ATM-yada. waxay bilaabeen 3 qaab oo kala duwan. waxay amreen ATM-ka inuu lacagta soo tuuro oo bannaanka soo bixiyo. saacad ayman wuxuu iska ilaalinayay ilaalada bangiga, balse waxaa jirtay ATM-ka oo si farsamaysan loo koobiyey baasiwaaga. waxaa dhacday tiimkan mid ka mid ah inuu imaado. waxaa dhacday sistemka ATM-ka markii gudaha loo galay. waxaa dhacday in lacagta gudaha ku jirtay ay si fudud uga baxaan. waxay tiimka soo darsadeen mid ka mid ah kuwoodii u qaadi lahay lacag. waxay mareen goobtii loogu talagalay inay lacagta ATM-ka ay kala bixi lahaayeen. waxay si fudud ay ku qaadeen lacagta, kuwaas oo si farsamaysan ayagoo u dan leh inay lacagtan gudaha ugu soo qaataan. waxay ku guulaysteen in ay lacagta ay ka soo qaataan ATM-kan iyadoo cidna aan ku baraarugsanayn. waxa kaleeto ay isku dayeen nidaamka Swift-ka. waxaa dhacday inay ku wareejiyaan lacagtii ugu badnayd nidaamkooda xisaaboodka ee kiiska. waxaa la sheegay in ay ku leeyihiin ay ku yaallaan Maraykanka iyo Shiinaha. waxaa kaleeto la sheegay haddii aad bangiga ku leedahay in ka badan $1,000, 9,000 ayayna la bixi jireen. waxay sameeyeen farsamo cajiib ah. tusaale, haddii shaqaalaha ama bangiga ay ku taalo in ka badan $1,000, waxay ka dhigayaan 10, taasoo macnaheedu yahay inay marin habaabinayaan. markaad fiiriso balanskaada ay sideeda ugu qoran tahay meesha. ma ahan tani lacagtii dhabka ahayd, waa spam, waana tiro caadi oo isaga qoran meesha. sidee lagu ogaaday tiimkan khatarta badan? baritaanku wuxuu ku bilowday markii ATM-ku uu yaalla magaalada Kiev ee dalka Ukraine. wuxuu bilaabay inuu lacagta iskiis isaga soo bixiyo iyadoo cidna amrin aan la qaracin baasiwaaga ama baatanka, asagoo aan cidna u dhowaanin. shirkadaha amniga ee Kaspersky ayaa loo yeeray. waxayna la yaabeen markii ay arkeen shaqaalaha difaaca ee Hackersk. waxay arkeen wax cajiib ah. kadib waxay ogaadeen in sistemka gudaha la qalday, loona qabtay amar la siinin in uu lacagta, taasoo macnaheeda ah in sistemka gudaha loo dhacay oona wax laga bedelay si loogu baadsado inta kale. nidaamka bangiga naftiisa ayay saamaysay. waxay ahaayeen tiim injineero oo aqoon sare u leh oo ka soo jeeda dhinaca Russia iyo Ukraine. mid ka mid ah madaxdoodii oo lagu magacaabo Dennis Kay ayaa markii dambe lagu qabtay dalka Spain asagoo u joogo damaashaad iyo baashaad, halka lacaguhu ka soo qaatay Kiev oo ku damaashaadayay magaalada Barcelona.
iyo Madrid sanadkii 2018.